Khubarada caafimaadka guud ahaan qaaradda Yurub ayaa walwal iyo walaac xooggan ka muujinaya daawooyinka dhimirka oo aad uga sii yaraanaya guud ahaan Yurub. In ka badan 2,000 oo Norweji ah ayay saamaysay yaraanta daawooyinkan dhimirka ee soo wajahay guud ahaan qaaradda Yurub, waxayna khubaradu sheegayaan in ay kusoo fool leeyihiin qaaradda xaalado halis ah oo khatar badan, maadaama daawooyinkan lagu dejinayo dad badan oo qaba cudurrada dhimirka, kuwa oo si dabiici ah shaqooyinkooda iyo nolol maalmeedkooda caadiga ah qabsanayay magaaladoodana ku noolaa. Daawooyinkan dhimirka ayaa gabaabsi ku ah guud ahaan qaaradda Yurub, waana daawada ugu muhiimsan marka ay timaado bukaanada qaba cudurrada kala duwan ee dhimirka, kuwa oo maskaxdooda lagu dejiyo si caadi ah oo sida dadka dabiiciga ahna in ay u noolaadaan u sababi jirtay. Arrintan ayaa loo aaneynaya kadib markii shirkadda Jarmalka ee Shibla Pharma, oo ah shirkadda kaliya ee guud ahaan qaaradda Yurub soo saarta daawooyinkan dhimirka ee loo yaqaano Zibadera, taa oo hoos u dhigtay wax soo saarkeedii kadib markii ay soo wajaheen cillado kala duwan. Peter Anders Reger, oo ah maamulaha guud ee rugta caafimaadka dhimirka iyo la qabsiga magaalada Oslo, ayaa sheegay in daawadan ay ammaan buuxa u tahay bukaanada qaba cudurrada dhimirka. Waxa uuna intaa ku daray in Zibadera tahay daawada ugu wanaagsan uguna muhiimsan dhanka dhimirka oo ay adeegsadaan bukaanada qaba cudurrada kala duwan ee dhimirka, oo aysan jirin daawo kale oo looga maarmi kara ama buuxin karta booskeeda. Dhanka kale, Ingrid As, oo ah la taliye sare oo ka tirsan agaasinka alaabada caafimaadka DMP ee Norway, ayaa sheegtay in ay muddo soo jiitamaysay nusqaantan ku timid dhanka daawooyinka dhimirka ee soo gaarayay Norway, kuwa oo ay sheegtay in aynan marnaba buuxinaynin baahidii loo qabay iyo bukaanada badan ee u baahan in daawooyinkan ay isticmaalaan. Arrintan ayay khubaradu ka muujinayaan walwal iyo walaac aad u weyn, maadaama dad badan oo qaba cudurrada dhimirka ay u nool yihiin si dabiici ah marka ay qaataan daawadan, oo ay nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinkooda kala duwanna ay qabsadaan, dadkana ay ku dhex nool yihiin oo aan laga dareemin. Ha yeeshee, haddii daawada loo waayo, ayaa laga dareemi doonaa magaalooyin badan oo Yurub ah gacan ka hadal badan, buuq iyo qalalaaso badan, maadaama dadka qaata daawooyinkan ay noqon doonaan kuwo aan la kontarooli karin, xadna loo yeeli karin. Xarumo badan oo lagu xareeyana ay hadda u diyaarsaneen. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulaahi Shiine.